من بيت من بيوته والحمد لله تعالى sidoo kale intaan qof in isugu yimaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weynayntiisa iyo diintooda inay wax ka bartaan ka ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa culummada safarka fog nooga yimid dan ayagoo mashquulsan duruufo ay haysato wakhtigooda wax ka bixiyey in ay u yimaadaan walaalahood oo waxa weeye la qaybsadaan cilmiga iyo waxa ay xambaarsan yihiin marka waa u mahadcelinaynaa kow culummada mid labaad inta soo xaadirta ayagana waa loo mahadcelinayaa qofka inuu wakhtigiisa uu soo huro isagoo oranaya bal culummada timid aan wax ka soo faa'iidaysto qofkana marxaladuu maraa ama xaaladuu leeyahay imaa adigu inaad wax faa'iidaynaysid ama imaa adiga aada faa'iidaysanaysid weligaaba wakhtiga hadduu maalaa yacni kaaga baxo oo dad baa hadda waxaa laga yaabaa inay iska fadhiyaan meelaha shaaha qof baa 5 sano kambala joogo bacdalcasr kasta iyo bacdalmaqrib kastoo meel uu iska fadhiyaa oo qofka bini'aadamku inuu isweydiiyo aniga maxaa ii kordhaayo cilmi la'aan waa mustaqbal la'aan dadka wax adduunka ka bedela waa dadka cilmiga leh mu'tamarkan oo waxa loo qabto wax kale ma aha marka ugu horeysa inaan isxasuusino oo culummada meelaha kale nooga timaadaan ka faa'iidaysano qalbigana inuu noo jilco oo muxaadaraad la subxaanahu wa tacaala na xasuusinaya iyo diintiisa iyo aakhirana xasuusinaya in loo qabto oo waxa iska bedelno duruusta masaajidka ka socoto oo caadigana in lagu soo xirmo tafsiir baa baxa duruus kala baxda duruustaas waxaa loo baahan yahay qofka waa waqti yar usbuucii waa dhowr saacadood maalintii waa saacad ama 45 daqiiqo ka طالب العلم qofka inuu noqdo ama uu ka faa'iideysto wax muhiim ah mutamaraadkan waxa loo qabanay waxa weeye inaan dhammaan ka faa'iideysano waliba waxa loo baahan yahay mutamarkan oo kale markuu dhacayo qofka inuu buug iyo qalin wato ayaa fiican laga yaabaa hadda sheekha muxaadarada u geli doona caawo in ilaa 20 xadiis uu sheego ilaa dhowr aayadood uu sheego hada iska dhageysto aad ka baxdo sabab maxay tiri xaliil wadaad wacdigiisa habeen baa lagu moodaa waxaa laga yaabaa in habeenka kaliya uu sheekhu wacdiyey marka banaanka loo baxay walaal sheekha maanta muxaadarada way fiicneed laakiin hadana waxba aadan ka faa'iideysan oo qalbiga xoogaa ugu dhaqaaqo waad faa'iideysatay laakiin haddii aad qori lahayd wax badan baa ka faa'iidi lahayd mutamaraadkan oo kale waxaa loo baahan yahay inaan qalinkeena iyo buugeena wadano fawaa'ida culummada noo timid oo waxa ajillada ah inaan ka faa'iideysano aan qoranaan loo baahan yahay mutamarku wuxuu soo bilowday muddo hadda laga joogo 5 ama 6 sano anoo soo bilaabmay waxa weeye kaliya markii la arkay bal dadka aan ka faa'iideysano culummada naga maqan oo meelaha kala joogo anaguna waxa weeye markay noo yimaadaan 4 maalin ama 3 maalin cilmigooda waxa ay noo keeneen wax aan kala harin waa arrin aad u wanaagsan laba jeerna waa la qabtaa inta u dhaxaysana culumma noo timaado inta waxa way qalbigeena inuu markasta wajilco masaajidkana aan isku xirnaa masjidu bayt kulli taqi ayu nabi sallallahu alayhi wa sallam alayhi masaajidka waa baytka qof kasta oo taqi ah oo alla ka baqada waana meesha cilmiga loo soo doonto waa khayrka meesha uu ku jiro kaadigu wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi waxa loo baahan yahay inaad naftaada ku sabirsiisado ku xirtid kuwa alla subxaanahu wa tacaala baryaaya ma u tukanayo galab iyo subaxba insha Allah tacaala ilaahay kuwa naga dhigo Allah naga dhigo kuwa ka faa'iideysto culummada markastana waxa weeye inta naga maqan aan gaarsiino isku day marka mu'tamarka oo kale uu dhacayo walaalaha inta kula degan inta meelaha joogto dumarka caruurta in la soo kaxayo meeshii ay noqoto mu'tamar yani meel iskugu yimaado caruurtan xataa banaanka hadday ku ciyaaraan waxay ogyihiin mu'tamar baa jiro way ku weynaanayaan ama ka weynaado waxay ogaanayaan waagaan yareen masaajidka la tegi jiro mu'tamar iyo muxaadaraad baa jiri jiray qofkii cunugii yaraa wax ma hilmaamayo wuxuu markastaba ku xirnaanayaa masjidka aad baa u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum ilaahay subxaana wa tacaala naga aqbala dhammaanteen wax ilaahayna qulubteena waxaa waaya sujilciyo baaraka allahu fiikum